بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaa sharaf iyo farxad weyn noo ah inaan u safreyno magaalada Manchester aan ka safreyno magaalada London waxaan u soconaa nikaaxii Maxamed iyo Juwayriya anagoo marag ka naqanayna ka waalid ahaan ka awow ahaan nikaaxii wiilkeena Maxamed iyo Juwayriya aduu idmo waxaan joognaa Victoria Station waa maxatada ugu weyn magaalada London waxay isku xirtaa magaalooyinka oo dhan gobolada iyo magaalada ay isku xirtaa sanadkii waxaa ka baxo 58 milyan maray waxay gaartay 90 milyan oo qof inay ka baxaan ay ka galaan laakiin maadaama hadda oo Europe ay ka baxday dalka UK xogaa yar waa qaaday iyo viisooyinkii ay bilaabeen darteed hadda ilaa 50 milyan ayuu gaarayaa oo laakiin waa maxato weyn oo aan ku dayasho mudan insha Allah oo aan ka dhaqan gelin karno الحمد لله وانا مدمج مانشستر الحمد لله حتى دروبل كين وحوها دروبل وصومالي عبد الشير له runtii alxamdulillah aad ugu farxay haddana waxaan noo yimid wiilkeena Ismaaciil oo awow ahay waxaa maanta farxad noo ahayd inuu na soo wado Manchester oo socono baska walaalkeena Cabdi Shire ma sha Allah ilaahay ha dooro Soomaalida alxamdulillah dalka UK aad ugu badan yihiin adeegyada bulshadana ayaga wada basaskii isbitaaladii dhakhaatiirtii macallimiintii iyo kulli wuxuu noo soo waday sida diblomaasiyiin oo kale ma sha Allah hurdo laga keen ilaaha doore barakallahu fiik Cabdi Shire Allah hadda Ismaaciilan soo waday magaaladii dhexmarona Manchester waxa waa magaalooyinka ugu waaweyn oo dalka UK magaalo oo taariikh leh waaye waxa lagu leeyahay waagii Romanka oo boqortooyada Romanka ayaa waxay ku qabeen fortress macna qalcad oo ay isku difaacaan laakiin Manchester waxa lagu xasuustaa industrialization ka macna warshadeynta meesha ay ka bilaabatay dalka UK waaye waxay la tartami jirtay magaalooyinka London laakiin warshadeyntii markii oo hoos u dhacay Manchester dhaawac weyn ayaa gaaray oo maalgelintii kulli waxay u badatay London taasa arkaysa reer Manchester xoogaa waa nacban yihiin London wax yar macna waa is nacban yihiin laakiin sida kale Manchester waa meel ma sha Allah dhanka hadda waxa aad ugu batay musiga ama media center ayaa laga dhisay sportigana heer oo yani fiican ka gaarin laakiin inkastoo sanadkan Premier League Manchester United xoogaa yar sidii hore ma aha wiilkayga Ismaaciilna waxa waaye die hard Manchester oo fan oo difoso oo Manchester aad waaye oo macnaa laakiin wuxuu yiri wali rajo waxaan qabnaa in UEFA Cup ay ku guuleystaan oo automatic promotion oo Champions League ay ku galaan marka wali rajo jiro oo leeyahay Ismaaciil wiilkayga marka alxamdulillah rabbil alamin haddana waxaa imaanay xafladii nikaaxa hoolkii aan soo galnay sida ujeedaan dadkii la sugayaa qaar waa yimideen waalidiintii gabadha ayaa حفلة النكاح أيام باللابن دون هذا إلهي رح إن شاء الله تعالى مثلاً إني لك وحل ويري هذا أبوه هذه قبل دونا يا مركا معنتا قبل إن شاء الله يا ويديسن دونا هذا إلهي رح غير قبل رادينا مرة المواد عدا لكن فرحت وين يفتح إلى الكرة دي ويل كي قبل مركا إن شاء الله وإنه حفلة marka hore waa mahadsantihiin khayr ilaahaydiisiyo ilaahay idin barakeeyo anoo ku hadlaayo labada qoys ee isguursanayo gabadha oo ah Juwayriya Abubakar Caaqib Axmed iyo dhinaca wiilka Maxamed Abdulqaadir Maxamed waxaan ku bilaabaynaa intaan sheekada gelin insha Allah قرآن ونؤخرنا يا شيخ عمر إبراهيم فليتفضل مشكورا مأجورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم
الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العظيم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، كل iska xasuusin ayaynu hadda kolley aan soo jeedinayno kelmadaasi ku saabsan uun kolley nikaaxa iyo guurka oo weliba waan u ah iyo xasuusin waalidka runtii ku waajahan. maanta alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan u fadhinaa 2 qof oo dhallinyaro ah oo aynu isku dari doono biidni illaahi tacaala. saasna waa sunnihii nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam, bal waa sunnihii ambiyada oo dhan. qofka sharaftiisuna waxay ku jirtaa qoys inuu maaragta kasoo jeedo, qoysna inuu asaaso, qoyskaasoo laga rabo inuu mujtamaca bulshada iyo ummadaba anfaco. iyagana ilaahi subxana watacaala waxaynu u baraynaa inuu uga dhigo gurigooda gurigii ummadoo dhan ay ku intifaacdo, dad saalixiina, ummad saalixiina oo iyaga iyo waalidkoodba anfaca, mujtamacana anfaca. runtii waxaan ogan lahaa waxaa waajib ah oo waalidka ku waajiba inay guurka dhalinyarta u fududeeyaan. haryahan dambe cagajiid badan baa koley xaggeena ka yimid zaruuftoo kale. Secondly, in the English language, I'd just like to point out a reminder and encourage all of the shabab that just like we're here today, Lillahi alhamd, in the nikah of a young brother and a young sister who are carrying out the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we also have to remember and remind ourselves that the Prophet sallallahu alaihi wasallam encouraged the youth to get married. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Ya ma'shar shabab in istita'a minkum al-ba'a falyatazawwaj." O shabab, or young people, or youth, whoever is able to get married, they should get married. And nikah or marriage is the sunnah of all of the prophets. Some would marry 2, 3, 4, or even more at times. And the Prophet ﷺ actually condemned an individual who said, "As for me, I won't get married, I will busy myself with ibadah." So this person wasn't busying himself with wasting his time, like he said, "I will busy myself with ibadah and I won't get married." Like the Prophet ﷺ said to him, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Whoever leaves off my sunnah, then he is not from it. Also, more so for the shabab or you guys that are now living in this society in which there are fitan and problems that you come across, whether it's in your places of study, whether it's in your places of work or employment, wherever it may be that you are, you're coming across all types of fitan. And the Prophet ﷺ encouraged the shabab specifically, and he said, فَإِنَّ وَغَضُّ الْبَصَرِ وَأَحْسَنُ الْفَرْجِ. And it is better for your eyesight and to help you to keep your gaze down. And also it's important to know that the best sort of nikah is the simple one, and that is the one that has the most blessing. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sidii Ilaahay inta lagu kulmiyey, Ilaahay jannada lagu kulmiyo. Waxaan mahad ballaaran soo jeedinayaa walaalihii oo waqtigooda qaaliga ah na siiyey oo soo xaadiray. maxaa yeelay qofka hadduu waqtigiisa qaaliga ah ku siiyo waa qof noloshiisa qayb ka mid ah ku siiyey. marka baarakallahu fiikum, ilaahay miisaanka xasanaadkiina idinkugu kabo. anigoo ku hadlaya magaca reerka reer Busuri ahna waalidkii, insha allahu tacaala waxaan weydiisanaynaa in lagu meheriyo gabadheennii Juwayriya Abubakar, insha allahu tacaala, oo sida ammaanadeena ay ku noqoto. waxaan u rajaynaynaa khayr insha allah waalidiinta. baarakallahu fiikum. halkan waxaa jooga niman dhalinyaro ah, halkii odayaashu cadday aad ka sugayseen dhalinyaro halkan wada fadhida colaadi waa badkood waa libaaxiyo colaadintaas ka soo reertay. horta marka ugu horeysa waa salaamadii Jawaahir wuxuu joogay ka mid ahaa dhalinyaradii ardayda ahaa ee macalimiintii reer waqooyigu wax bareen. inaadagayba waa ka mid ah Xuseen Xanaan la odhan jiray, ahayd mastarka ahaa. markaa waa salaamadii soo dhawaada inanta maxay tahay Juwayriya
abokar caaqib waxaan idin siinay waanu idinku meherinaynaa waanu idin dhisaynaa waanan idinku daraynaa sar markaa shukran tafiik بارك الله فيك وكاغم هاد علينا إلهي وحن كوالد أهان وقرينا إنه لبحيدك وشيء أولاد إنه كبي وهجاميات حفاظ إن شاء الله تعالى بدنا عرورة ابتياك ودي رعن مركز إن شاء الله تعالى عرور وهجاميات واللباحية إن شاء الله إنه إلهي كسري إن شاء الله تعالى إذن كان هذا mahadsantihiin and for those who don't speak Somali, thank you so much for attending, thank you so much for giving us your valuable time. And when a person gives you his valuable time, it's like they gave part of their life. So jazakumullahu khairan for attending, and may Allah bless this marriage. Barakallahu fikum. أصل الموضوع في رجلنا أحمد المدينة شوية أبوك عاقل مصي سيد محمد عبد القادر محمد المهكر الشيخي مصي سيد ممهر سيد ومقوطتي ونسي محمد عبد القادر إذا أنت ليلة الجويرية أبوك عاقل زوجة أهان ما أفضل شيء وانا أفضل. بارك الله فيكم وبارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير وأنت أوليا قبول وإجابة الله سبحانه وتعالى ربنا الكريم وندعو عليها والله يعلم. للحبيب منى
سيدي ربي صل على الحبيب محمد وعلينا لمن كيف تلغى رقيك الأنبياء يا سماء ولا الله ما شاء الله marka xafladaha imaado waxa arkaysaa dadkii hore waxa farxad iyo sharaf weyn inaan arko kaabagalaaskeygii dugsiga sare ee bartamaha cali caraale ma sha Allah waa nin oo isoo tarbiyeeyay oo i oga maadaama aan ahaa dadka fasalka ugu da'yara anoo da'yaraan dhiganayay cali caraale ma sha Allah waa nin Manchester degan oo community-gana ma sha Allah qayb weyn ka ah deegaanka Manchester farxad weyn ay tahay walaalkayga cali ma sha Allah ما شاء الله بارك الله أنا sidoo kale ii tahay farxad weyn maanta inaan isaragno muddo dheer ka bacdi galaaskii oo ahay bartamaha inuu yahay jeclahay oo qaybta kore ahay ma sha Allah ninka waxa ninka galaas ugu yar oo ahay ninka ugu firfircoon oo ahay nin aad u sheeko badan oo ahay ma sha Allah welcome aan ku leeyahay walaalkay qaaliya ما شاء الله inta kale waxaan rajaynaynaa inay nagu soo xirmi doontaan rajaynaynaa insha Allah qofka arka oo ahaa jira bartamaha wuxuu nagu soo raadi karaa oo ahaa lambarka oo ahaa walaalkay ama aniga waa naga soo raadi karaa marka welcome idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh maanta waxaan joogaa magaalada Manchester oo aroos ka jiray ma sha Allah marka welcome idin leeyahay soo dhawaada assalaamu calaykum الحمد لله نكاحي وكسو دماني إلهي ونوسو فودي سقرح بدن ودعي حدنا ويلكي إسماعيل أيا وحنا كيني محطدي بسكة ونسو دوي سفي عني نوما موسين إلهي خير حسيو إلهي ريركا أكو بركي يا ولاد بارك إلهي بارك الله فيك إن شاء الله بارك الله فيك إن شاء الله خير بارك الله فيكم ما يشوف سوحة لنا